waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo macalin Ismaaciil iyo maadadeennii biology-ga. Waa barnaamijkeennii ka bara hawada aad kala socon jirteen TV-ga qaranka iyo idaacadda qaranka Radio Hargeysa. Okay, maadadeennu waa aan dhigaynaa waa biology, waa form 1 chapterkii koobaad oo ay term 1 baynu soo bilownay, waana casharkii labaad. Okay, casharka koobaad waxaynu kaga soo hadalnay definitionska biology-ga iyo kelmadda biology waxay meelahay ka timi actually iyo waxyaabaha ay hadda jir inta badan u taagan yihiin mid waliba iyo macnahooda. Waxaynu kale kaga soo hadalnay brancheska ama noocyada hadda jir inta badan biology-ga ayaynu kaga soo hadalnay iyo mid walba qeexitaankeeda ama definitionkeeda ayaynu kaga soo hadalnay. Waxaynu sidoo kale aynu soo gaarnay waxa la yiraahdo cell and microscope. Cellka iyo microscope-ka waa unuga iyo weynaysada waxa la yiraahdo microscope. Waayo unuga waxaynu sheegnay inuu yahay waxa ugu yar living organism. Sidoo kale maxay microscope baa lagu arki karayaa only the microscope ayuunba hadda jir inta badan unugyada badankooda lagu arkaa. Okay, waayo cellku markaa waxaynu ku sheegnay hore waynu soo yar qeexnay waa smallest unit of living things. oo waxa ugu yar ee nooluhu ay ka samaysan yihiin. Smallest unit of living things. oo waxa ugu yar ee nooluhu uu ka samaysan yahay ayaa la yiraahdaa marka maxay cell aynu odhanaynaa. Okay, marka la eego haddaba hadda jir inta badan organism ama noolayaasha ama living thingska ka kooban unugyada marka la eego waxa loo qaybiyaa haddii lagu saleeyo unugyada ay ka samaysan yihiin waxa loo qaybinayaa waxa la yiraahdo unicellular iyo waxa la yiraahdo markaa multicellular waa organism ka kooban only one cell iyo organism ka kooban unugyo fara badan ama cells badan ka kooban ayaa la yiraahdaa. marka kan wuxuu ka samaysan yahay made up of wuxuu ka kooban yahay only one cell, hal unug. maxaa kamid ah waxaa kamid ah sida bacteriadii for example waxaa kaloo kamid ah sida amoebadii ayaa actually kamid ah. Okay, kana wuxuu ka kooban yahay marka la leeyahay multicellular wuxuu ka samaysan yahay made up of many cells macnaha unugyo fara badan ayuu kana ka samaysan marka la leeyahay multicellular waa unugyo badan. Okay, waxa kamid ah example for example animals and plants. All animals and plants. Okay, dhirta iyo hadda jir inta badan xayawaanada sida aynu inagu kamid nahay animalka oo humana ayaa wuxuu ka samaysan yahay marka maxay many cells buu ka samaysan yahay. Okay, halka waxaynu eegaynaa waxa la yiraahdo marka cell theory, fikradda unuga theory, cell theory-ga macna unuga hadda jir inta badan maxay iyo wuxuu yahay waxa hadda jir inta badan u kala dambeeyay saynisyahano fara badan oo mid walba markaa si u arkayay marka oo mid lahaa actually animalsku waxay ka samaysan yihiin unugyo, mid lahaa plant waxay ka samaysan yihiin unugyo, mid lahaa animals iyo plant waxay ka samaysan yihiin unugyo, mid wuxuu lahaa all living organism oo dhan wuxuu ka samaysan yahay unugyo. waxyaabahaas oo hadda jir inta badan saynisyahano ayaa isaga kala dambeeyay marka guud ahaan wuxuu sheegayaa cell theory-gu states that wuxuu inoo sheegayaa
all living things are made up of cells macnaha inay ka samaysan yihiin markaa maxay unugyo okay sidoo kale cell theory wuxuu inoo sheegayaa cells come from waxay ka yimaadeen other cells macnaha unugyo kale ayay ka soo jeedaan okay qodobka u dambeeya cell is the unit of structure and function okay marka statementinkan ayuu hadee jarinta badan ama waxyaabaha halkan ku qoranay ayuu inoo sheegaya waxa la yidhahdo cell theory wuxuu qeexayaa in dhammaan nooluhu ka samaysan yahay unugyo inay unugyadu ka soo jeedaan cells come from other cells ama pre-existing cells unugyo hore u jiray bay ka yimaadeen cell is the unit of structure cellku hadee jarinta badan waa unitka maxay qaab ahaan iyo shaqo ee uu ka kooban yahay actually maxay living things unit of structure and function of living things okay halkaa waxaa inugu xigaya waxa la idhaahdo plant and animal cells baynu soo qaadanaynaa plant and animal cells okay intaynan bal soo qaadan hadda plant and animal cells aan isla eegno markaa bal saynis yahanada iyaguna cell theory-ga markaa wax ka yidhi cell theory waxaa jira markaa there are 3 scientists saddex saynis yahan who proposed kuwaasoo soo bandhigay markaa the phenomenon astaanta of the cell theory fikradda markaa unuga waxaanay kala yihiin ninka la yidhahdo Theodor Schwann waa nin zoologist markaan leenahay waa nin ku takhasusay cilmiga zoologiga oo aynu ku soo baranay qaybteennii hore inuu zoologigu yahay qaybta biologiga ee ka hadasha markaa maxay animalska ama barashada xayawaanka okay zoologistigaasi who observed wuxuu eegay ama uu arkay that the tissue of animals had cells inay nudayaasha animalsku ay ka samaysan yihiin ama ay leeyihiin actually maxay unugyo taariikhda oo ah 1839 okay saynisyahanka kale ee magaciisa la yidhaahdo Matthias Scaladin waa botanist waxaynu uga jeednaa waa nin ku takhasusay ama saynisyahan isaguna ku takhasusay cilmiga barashada dhirta okay who observed isaguna wuxuu arkay that the tissue of plant had cells inay xagga isaguna dhirtu ka eegay actually maadaama botanist ahaa kaasina zoologist buu ahaa xagga xayawaanku markaa isaguna ka fiiriyey markaa inay kuwani ay ka kooban yihiin nudayaashooduna cells ninka la yidhaahdo Rudolf Virchow living things is made up of cells wuxuu yidhi isaguna living things ama nooluhu wuxuu ka kooban yahay markaa maxay cells and they come from other cells sidoo kale waxay ka yimaadeen other cells marka la isu wada geeyo waxaasoo dhan waxay inoo sheegaysaa markaa cell theory ayay waxay inooga sheegaysaa cell theory-gana markaa saddexdaa qaybood ee aynu iminka sharaxaynay ayay inoo sheegaysaa ah all living things are made up of one or more cells inay dhammaan living things ka kooban yihiin hal ama in ka badan oo unugyo ah inay cells yihiin basic unit of structure and function in organism unitka qaab ahaan iyo shaqo ahaanba ugu yar living organismsku ama nooluhu ay ka samaysan yihiin all cells unugyadu arise waxay ka soo fufeen ama ka soo jeedaan from pre-existing cells unugyo hore markaa u jiray okay waxaan isla eegaynaa haddaba waxa la yidhaahdo markaa plant and animal cell comparison-kooda si aynu isu barbardhigno plant cellku waanu isla garanay in dhirtu ay ka kooban tahay unugyo xayawaankuna uu ka samaysan yahay actually unugyo guud ahaanna living organismka oo dhamme ay ka samaysan yihiin actually maxay unugyo marka laga tago viruska haddaba maxay ku kala duwan yihiin unuga geedka iyo unuga had iyo jeer inta badan xayawaanka animal cell haddaynu soo qaadano for example iyo plant cellkii inagoo diagramkoodana qaadan doona differenceskooda marka hore aynu ku horeyno intaynan similaritygooda gaadhin okay waxaa la idhahdaa no cell wall kani wuxuu leeyahay have a cell wall maxaa la yidhahdaa kani wuxuu leeyahay unugiisa waxa ugu sarreeya gidaar aan noolayn oo loo yaqaano gidaar unug ama la yidhaahdo actually cell wall kana ma laha markaa
cell wall ee wuxuu ka bilaabmaa layer kale ama xuub loo yaqaano cell membrane. Okay, kani waxaa la yidhahdaa no chloroplast, sidoo kale ma laha chloroplast organelka la yidhaahdo ama kiish qoraxeedka ee had iyo jeer inta badan maxay lagu sameeyo cunno samaysiga dhirtu ay ka dhacdo ama photosynthesis uu ka dhaco isagu ma laha oo ma samaysto actually photosynthesis marka no chloroplast kana sidoo kale half chloroplast kana chloroplast buu leeyahay marka half chloroplast. Okay, way markaad eegto sidoo kale waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah kani inaanu lahayn no large vacuole ma laha vacuole weyn oo organelliska unuga ku dhex jira, waayo unugu wuxuu kasii kooban yahay structures yar oo shaqada u qabta unuga oo loo yaqaano markaa maxay organelliskaasi markaa marka plant cellka la joogo organelka ugu weyn waxaa la yidhahdaa markaa maxay vacuole, waxaana loo yaqaana actually kiish biyood ayaa la yidhahdaa marka no large vacuole. kana waa actually maxay have a large vacuole, have a large vacuole. That is the main difference in structure. taasi waa faraqa ugu weyn ay ku kala duwan yihiin xagga qaab ahaan labada unug ee plant cellka iyo animal cellka. Okay, inaanu cell wall lahayn kan animal cellku inuu kani leeyahay, inaanu lahayn chloroplast inuu kani chloroplast leeyahay, inaanu kani lahayn large vacuole oo macnaha vacuole ba ma laha miyaa looga jeedaa may vacuole uu leeyahay laakiin vacuolkiisu waa small and temporary, waa mid actually aan joogto ahayn oo kooban oo yar had iyo jeer inta badan, laakiin kani waa permanent, waa mid waaraysa sidoo kale maxay ah large ah. Okay, uu meesha u kaydisa actually maxay compoundiska iyo sidoo kale maxay waterka. Differenceka kale u dhaxayn kara waxaa ka mid ah inuu had iyo jeer inta badan maxay uu leeyahay actually kani inuu kani leeyahay centered nucleus buudiisu waxay kaga taalaa bartanka centered nucleus maadaama aanu lahayn large vacuole actually vacuole durkiisa ma jirto, therefore waxay kaga taalaa markaa maxay bartanka. Kani wuxuu leeyahay markaa sided nucleuskiisu inta badan dhinaca ayay kaga taalaa because of the large vacuole. Kani actually waxaa la yidhahdaa markaa maxay ma laha fixed shape, waa irregular shape baa la yidhahdaa irregular shape waa qaab maqumane oo qaabkiisu actually ma toosna sababtoo ah cell wall ma laha. kana wuxuu leeyahay markaa fixed or regular shape maxaa ka dhigay markaa in shapekiisu aanu isbedbedelin because of the cell wallka uu leeyahay ama ku wareegsan ayaa ka dhigaysa. halkaa waxaynu eegaynaa markaa bal sawirada inagoo ku horeyn doona animal cell diagram, animal cell inagoo eegi doona. Okay, haddaynu soo qaadano markaa animal cell unuga markaa xayawaanka haddaynu soo qaadano structurally waa sidan u fiirso bal haddaa kaa ugu sarreeya waxaa la yidhahdaa markaa kaasi waa cell membrane, waayo unug kasta waxaa ku xidhan gate oo cell gate la yidhaahdo loona yaqaano cell membrane ama la yidhaahdo markaa maxay magaciisa kale plasma membrane, xuubka plasma membrane baa la yidhahdaa, waayo dareeraha unuga ayuu celiyaa iyo waxyaabaha kale ee contentka kale ee ku dhex jira ama waxyaabaha kale ama compoundiska kale ee ku dhex jiro had iyo jeer inta badan uu celinaya. Okay, halkan kale cad waxaa la yidhahdaa markaa isagana cytoplasm baa la odhanaya. Okay, halkan waxaa ku jira isaguna waxaa la yidhahdaa markaa maxay nucleuskii ama bu'dii baa ku jirta, halkan nucleuskii baa ku jirta. This is the nucleus ama cell nucleus. u fiirso bal hadda ardayow qaabka aynu sawirayno aad buu u fudud yahay. halkan xuubka nucleus ku wareegsan waxaa la yidhahdaa nuclear membrane, waa xuubkii ama xuub bu'eedkii baa la yidhahdaa ama xuubkii bu'da ku wareegsanaa oo nuclear membrane baa la odhanaya. hareeraha waxaa ka raacsan tuumbooyin dhaadheer oo loo yaqaano markaa maxay endoplasmic reticulum la yidhaahdo ayaa dhinacyada ka raacsan. qaar waxay leeyihiin markaa maxay structure serial oo ribosome la yidhaahdo, therefore markaa waxaa la yidhahdaa raf. Okay, qaarna actually waa smooth markaa kuwana waxaa la yidhahdaa markaa endoplasmic reticulum
endoplasmic reticulum waa structure kale oo organal kale oo unuga ku dhex jira oo in arki doono markaa isagana shaqadiisa halkan isagana waxaa kaloo ku dhex jira markaa cytoplasmka organaliska la yidhaahdo sida mitochondria organalkaas actually mitochondria waa organalka markaa u qabanaya unuga inuu tamarta u dhaliyo una kaydiyo actually maxay tamarta ama uu ka dhaco waxa la yidhahdo respirationka oo tamar dhalinta aynu ku soo aragnay characteristicska living thingska halkan kale isaguna waxaa jira saakis yaryar oo kooban oo aad moodo madiimada yaroo isku daba jira ama muus yaryar oo saa isugu rasaysan oo loo yaqaano markaa maxay golgi waxaa la yidhahdaa golgi bodies baa la yidhahdaa waa golgi body ama unugyada golgi ninkii soo saaray baa lagu magac daray golgi bodies baa la odhanaya halkanna waxa yaalla waxa la yidhahdo markaa maxay physicalis oo ka soo go-ay markaa golgi bodiga okay sidoo kale waxaa kaloo ku dhex jira waxa la yidhahdo markaa lysosomes okay salkaa aynu halkaa ku sawirayno weliba waxa lagu eegay marka la eego actually microscopiska lagu eego unugyada ayaa waxaa la yidhahdaa waxaa loo qaybiyaa mid electricity ku shaqeeya oo electron ku shaqeynayo loo yaqaano electron microscope iyo midda light microscope marka kanoo kale structureskan ma muujinayo waxaa la yidhahdo markaa light microscopeku wuxuu soo saaraya unuga markaad light microscopeka ku eegto qaab noocana ayuu had iyo jeer inta badan u soo saaraya marka lagu eego electron microscopena had iyo jeer inta badan qaabkaasu noqonaya okay kani waa simple shay buu u muuqdaa ama qaab fudud sababtoo actually waxaa lagu eegay light microscope kanna waxaad arkaysaa inuu organaliska oo dhan oo gudaha ku jiray oo dhan had iyo jeer inta badan ay muuqdaan sababta markaa ay u muuqanayaan waxaa lagu eegay waxa la yidhahda markaa electron microscope oo intuu wax weyneynayo ama magnification powerka ayaa kala duwan oo kani aad bu markaa wax u weyneynaya daadso inuu arkaynaa markaa maxay structureskii gudaha ku jiray unug oo dhan kanna actually maxay waxaa lagu eegay markaa maxay light microscope baa lagu eegay kanna waxaa lagu eegay waxa la yidhahdo markaa electron microscope baa markaa la adeegsaday okay markaa unuga animal cellka waa inaad actually sawiri kartaa structureskana aad seegi karaysa marka kaas waxaan yidhi waa cell membrane marka lasoo dhaafo wax loo soo gelaya waxa la yidhahdo cytoplasm haddana organaliskii oo ugu horeyso ama ugu weyn tahay animal cellka waxa la yidhahdo nucleus baa ugu weyn waxaa kaloo ku xiga markaa endoplasmic reticulum oo hareeraha ka yaala sidoo kale waxaa jira iyaguna waxa la yidhahdo markaa ribosomes meelaha proteinka lagu sameeyo weeyaan ribosomes mitochondria golgi body physicalis lysosomes okay these are the organelles within the cell waa organelliska markaa ama small structureska ku jira actually unuga ku jira okay halkaa aynu animal cellkii markaa kaga gudubno aynu tagno markaa maxay plant cellka isagana structurekiisa okay plant cellka aynu eegno bal hadda isagana plant cell bal qaabka hadda isagana aynu usoo qaadanayno structurekiisa bal hadda u fiirso kaasi wuxuu ahaa markaa animal cell plant cellkana u fiirso plant cellka isaga waxaa ugu sarreeya ama ugu horeeya aan idhaahda cell wallka ama gidaar unug waa non living wallka kaa ugu sarreeya waxaa loo yaqaanaa cell wallka markaad sawirto waxaa ku xigaya waxaa la yidhahda markaa maxay cell membrane ayaa haddana ku xigaya layerkaa kale wuxuu noqonayaa actually maxay cell membrane waa xuub unug baa isagana af soomaali ahaan la yidhahdaa cell membrane xuubkii unuga ee qabanayay structureska gudaha ugu jiro oo dhan celinayay okay waxaa kaloo kusii xiga markaa isagu uu leeyahay large vacuole weliba vacuolkaasi inta badan waxay weynaataa ama sayskeedu wuxuu ku xidhan yahay hadba biyaha ku jira unuga hadday biyuhu badan yihiin vacuolka sayskeedu wuu kordhaa hadduu yar yahay wuu yaraanayaa actually sayskeedu markaa size of the vacuole waxay ku xidhan tahay mar walba sayskeedu waterka ama qadarka biyaha ah ee had iyo jeer inta badan geedkaasi uu haysto markaa kaana waxaa la yidhahdaa markaa maxay waa vacuole waa large vacuole waa vacuoleka actually maxay unuga waxaa kaloo kusoo xiga markaa nucleuskii oo xaggana tumbooyinka aynu sheegaynay ee hareeraha kaga dhegan yihiin tumbooyinkaasina waa endoplasmic reticulum ama ER ba loo soo gaabin kuwaas actually maxay waa markaa qaarna waa raf qaarna waa smooth okay markaa kana waa nucleuska weeye nucleus waa budi qaybahana actually waa ER waxaynu uga jeednaa endoplasmic reticulum ER kaas waxay u taagan tahay endoplasmic reticulum
Okay sidoo kale isagu wuxuu kaga duwan yahay oo uu leeyahay actually markaa laga tago cell wallka inuu leeyahay waxa la yiraahdo markaa chloroplast organelles kale oo la yiraahdo iyagu chloroplast oo kii hore aynaan ku arkaynin aynu ku arkaynaa waa chloroplast waa meesha uu ka dhaco photosynthesisku sidoo kale wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo markaa mitochondrion ayaa la yiraahdaa midka kaliya jamacana mitochondria ayaa la oranaya okay marka isaga waxa ugu sareeya marka cell wallka ugu sareeya waxa ku xiga marka cell membrane-ki ama xuub unugii waxa ku soo xiga marka large vacuole vacuole-ki weynaa ama kiishbiyoodki weynaa okay kiishbiyoodka weyn ee ku jira actually unuga wuxuu kaydiyaa waterka iyo compounds hadii jirinta badan ama ionska ayuu store gareynaya actually unuga waxa ku soo xiga marka halkan waxaad arkaysaa nucleus-ki sidoo kale waxaad arkaysaa marka maxay tuumbooyinka dhinacyada ka raacsan nucleus-ka ER baa la dhahdaa ama endoplasmic reticulum baa la odhanayaa borotiinada iyo lipids-ka ay soo saaraan okay sidoo kale waxa ku jira waxa la yiraahdo marka Golgi bodies okay Golgi bodies baa ku jira haddaba waxaynu isla eegaynaa bal similarity-ga difference waynu aragnay waxyaabay ku kala duwan yihiin waynu aragnay labada unug waxaynu isla eegaynaa markaa similarity of animal and plant cell unuga dhirta iyo unuga xayawaanku waxyaabaha ay ka siman yihiin ama ay iskaga midka yihiin maxaa ka mid ah similarity-gooda haddaba similaritieskooda waxaa ka mid a markaa inay ka siman yihiin waa plant cellka iyo animal cellka waxaa ka mid ah both half labaduba waxay lahaayeen cell membrane waxay lahaayeen waxa la yidhahdo cell membrane labaduba waxay lahaayeen cytoplasm waa meesha organelleska hadii jir inta badan ay ku jiraan unuga ama small structures ay ku jiraan unuga waana meesha chemical reaction ama falgalka chemical uu ka dhaco unuga okay waxay lahaayeen labaduba waxa la yiraahdo ER ama endoplasmic reticulum labaduba waxay leeyihiin waxa la yiraahdo marka Golgi bodies labaduba waxay leeyihiin mitochondria labaduba waxay sidoo kale ay leeyihiin waxa la yiraahdo mitochondria ay leeyihiin Golgi body okay cytoplasm kon aragnay vacuole-ka labaduba way leeyihiin laakiin midna waa large midna waa actually maxay waa small okay marka structures-kaas oo dhan waxyaabaha ay ka siman yihiin weeye ama similarity-gooda labada unugba ay leeyihiin plant cell-ka iyo sidoo kale maxay animal cell-ka plant cell-ku markuu saa yahay oo kale isagana waxa lagu eegay sidoo kale waxa la yiraahdo electron microscope laakiin marka light-ka lagu eego isaguna sidoo kale wuxuu soo baxayaa qaab hadii jir inta badan maxay noocana ayuunbuu oo cell wall-ka ama layrada sare ayuunbaa actually muuqanaya oo qaab noocaasa iyo maybe sometimes for example vacuole qaab fudud buu actually isaguna u soo baxaya marka lagu eego light microscope laakiin structures-kan oo dhan hadii jir inta badan muuqan maayaan halka waxaad arkaysaa similarity-gooda for example waa intaynu sheegaynay xagga waa plant cell-ki weeyaan kana waa animal cell kaas waa plant cell-ki kaasina actually animal cell ka green-ka ama akhtarka ardayda iga daawanaysa TV-ga waxa weeyaan waa plant cell-ki wuxuu leeyahay cell wall wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo chloroplast wuxuu leeyahay sidoo kale waxa la yiraahdo large vacuole okay xaggan kale waa waxyaabaha ay ka siman yihiin dhexda ugu jiraay waxay leeyihiin vacuole laakiin midna waa weyn tahay midna waa yar tahay sidoo kale labaduba waxay leeyihiin both half nucleus both half cell membrane labaduba waxay leeyihiin cell membrane labaduba waxay leeyihiin mitochondrion labaduba waxay leeyihiin endoplasmic reticulum Golgi apparatus iyo Golgi body waa isku mid weey cytoplasm bay leeyihiin labaduba waxay leeyihiin sidoo kale waxa la yiraahdo lysosome okay halka waxaad ku arkaysaa animal cell-ki iyo plant cell-ki ayaad ku arkaysaa cytoplasm-ki nucleus-ki ribosome-ki waxyaabaha ka siman yihiin weeye waxyaabahaasi saddexdana waxyaabay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin actually waxa la yiraahdo marka chloroplast vacuole cell wall found in plant cells only waxa laga helaa plant cell-ka halkan waxaad arkaysaa waa waxyaabaha mid walba u gaar yahay animal cell-ka plant cell-ka iyo actually labaduba waxay isugu meelaha isugu imanayaan mitochondria Golgi apparatus rough endoplasmic reticulum iyo waxa la yiraahdo smooth labadaba waa labada qaybood ee ER ama endoplasmic reticulum-ka uga qaybsanto aynu arki doono shaqadeeda cytoplasm iyo ribosome waxyaabay ku kala duwan yihiin xaggan waxaad arkaysaa no cell wall small or no vacuole no chloroplast okay
halkaas buu cashirkeenaasi maanta aynu ku joojin doonaa. cashirkeenaasoo ka hadlayey selka iyo microscope-ka, weli microscope maynan gaadhin, selkan buu ka hadlayey. Okay, intaynu markaa isugu iman doono casharkan cashar lamida waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka, waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho, waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta, wadankiina wax u barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno.